الله الرحمن الرحيم arday meel kasta aad joogtaan soo dhawaada iyo asxaabta kale ee channelka ku xiran dhammaantiin muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa layliyadii taxanaha ahaa ee fasalka form 4ka iyo form 2ga waa cutubka saddexaad ee doodaha iyo fagaara ka hadalka fasalka 12aad waxqabadka lixaad bogga 75 ilaa 80 waa dheer yahay laakiin muuqaalkan koowaad saddex fallaarood ayaynu ku eegaynaa haddii la idmo falaarta koowaad waxayna leedahay isku aadi ereyga iyo macnihiisa halkan ereyadii baa inoo yaal halkanna waxaa inoo yaalla macnihii baa inoo yaal aynu ku aadin lahayn saa awgeed ereygan afraad waynu halkan dhignay waa sirsir sirsir waa girgirka mindida ee aan waxba goyn ee afka wax gooye markaas lidkiisa ah halkanna lambar labaynu waxaan dhignay lambarka koowaad oo ah dhalandhool dhalandhool waxay marka waa socodka la socdo duhurkii waxaa kaloo la macno ah wirwir ama bakhool sidaas si la mid ah arday inta aan kaaga tegay ka shaqee fallaarta ku xigta waxay ku odhanaysaa sharax ereyada hoose waxa marka buuggu kaa rabaa laba qaybood mar wuxuu kaa rabaa ereyada meesiyada loo isticmaalo gaarka ah iyo ereyada halka meesi loo isticmaalo inaad kala garato kow ereygan guubis geeleyda isticmaasha qaalinta ugub awrka ay ku curato guubis labadan erey ee 10 iyo 11 ah waa gandaal oo maqaarka saca igarka lagu maalo iyo fadhi oo ah lo'du markay 100 gaadho labadaasna lo'da ayaa loo isticmaalaa inta kale maxaa loo adeegsadaa ereyada soo haray gamaanka fardaha loo adeegsadaa gaar ahaan lambar 1 feeraaro danan yakh deeg gaalib darmaan kadle wegen geenyo iyo sangi jeeraaro marka maxaa la yidhaahdaa jeeraaro waxaa la yidhaahdaa barwaaqada markay joogaan xooluhu orodka ay markaas sameeyaan oo fardaha markii la isku cayriyo iyaga dhanka kale waxaraha oo kale markay joogaan barwaaqada iyaguna dudumooyinka way ku ciyaaraan noocaasna jeeraaro baa la yidhaahdaa danan waa codka ay farduhu sameeyaan halka codka dameeruhu uu noqonayo danaani yakh iyo deeg waxaa loo adeegsadaa faraska marka la joojinayo ama la celinayo halka awrka doo looga isticmaalo yakh wuxuu kaloo leeyahay macne qofka tilaabada dheer yakhlayn deegna macno kale waa leedahay iyadana waa saboolka ama qofka markay xooluhu dhaafaan hebel waa deegi gaalib darmaan kadle wagan geenyo iyo sange kuwaasna waxaa lagaa rabaa inaad soo macnaysid haddii ilaahay yidhaahdo aan sii lugayne fallaartan ku xigtaa waxay ku leedahay oraahyada soomaalida hore ayaa laga soo qaata waa dood wada hadal waxaa la rabaa laba arday inay ra'yigooda markaas ku cabiraan nin walba sida uu u arko laba gabdhood ama laba wiil waa nasiib nabsi iyo nasab marka waxaa la yidhahdaa qofka dadla dhaqanka wanaagsan dabeecadda wanaagsan qof kasta sida wanaagsan oo la dhaqmo hebel nasab wey kii intaa laga waayay muxuu noqonayaa gun siib waa laki ama haddii ilaahay kuu ron yahay hoodo ilaahay bixiyo dadkoo dhan nasiib marka ma leh haddii waraaqa meel lagu yaaciyo oo ebera ay ku jiraan kuwana ay wax ku qoran yihin waxaa laga yaabaa ina mid ebera kuu soo baxdo ama mid wax ku qoran yihin ay kuu soo baxdo halka dhigaaga faaruq ay u soo baxdo ama mid wax ku qoran yihin sidoo kale u helo waa nasiib nafsiga waxaa la yidhahdaa hanti haddii ilaahay ku siiyo maal ilaahay ku siiyo in aad ku ciyaarto oo markaas nafsi uu kaaga dhaco halkaa ama qof aad eed ka gasho kadibna meeshuu maanta joogo aad adigu berri timaadid oo nafsi kaaga dhaco nafsigu marka waa wax xun inaad iska ilaaliso noloshaada lagaa rabaa marka labaad waxaa la yidhi saddex lama arag baa la yidhi daray ubax leh mar gorayo iyo dameere af madow daray waa geedaha ka mid a miroolayda ah ubax marka ma bixiyo geedka jirridiisa ayaa miruhu ka baxaan oo laan yar ka soo baxda laantaas miruhu ku dhoobmaan sida mooskoo kaleeto gucji ama gacan oo kale ugu baxaan gorayadu waa shimbir waxay dhashaa ukun saa darteed caanaba ma yeelan marka maba imaanayo meesha dameere af madow dameere af cad baa la arkaa laakiin dameeruhu af madow ma lahan saddex waxa la yidhi saddex waday lagama yeesho waday marka waa saaxiib jaalle ama shoodhe
saa darteed saddex ha ka yeelan baa layidhi nin aan rabbi aqoon iyo nin aan rag aqoon iyo nin aan run aqoon nimaan rabbi aqoon hadde wuu ku cibaado seejinaya wixii ilaahay qoomka kuu keeno dhan baad baalmaraysaa saaxiib marka hala noqon nin aan rag aqoonina waa nin maalinba bawdo rag maalinba mid baa qaawane maalinta aad u baahan tahay hiil nin aan kuu hagar baxayn nimaan run aqoonina waa nin cadaaladda ka fog oo been iyo waxaas laaqda iyo khiyaamo adiguna noocaas oo kale baad markaa noqonaysa marka saddexdaba ka fogow layliga qaybtan muuqaalkan koowaad intaasaynu ku eegnay qaybta labaadna waa ku soo xijin doonaa insha allah hawdama la'aanin channelka ku xirow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu